Waa salaamay akhyaarta meel walba aad joogtaan. Waxaan rabaa inaan la wadaago sheeko yar oo cajiib ah oo aan mar dhow akhriyay. Sheekada waxay ku saabsan tahay arrin hadda ka taagan dalka Ingiriiska. Dalka Ingiriiska ayaa wuxuu dhisanayaa waddo tareen oo aad u dheer. Waddadan waxay isku xiraysaa marka caasimadda London iyo gobollada waqooyiga. Waddadan qayb ka mid ah meesha ay marto duurka ayaa waxaa ku nool bahashan loo yaqaano fiidmeerta ama kibileyda ninba sida u yaqaano. Waxaa marka lagu khasban yahay in la badbaadiyo bahashan fiidmeerta ah oo aanan laga qasin meesha ay ku nooleed ileen waddada iyadaa soo martay meeshan waxaa degan bahashan fiidmeerta ayaa ku nool. Dowladda marka waxay ku qasbaneed in bahashan la badbaadiyo loo dhiso hangar weyn ama har weyn ay ku dulnoolaato tareenkana uu hoos u maro. Sheekada cajiibka waxay tahay marka lacagta ku baxday qarashka ku baxay dhismaha bahashan loo dhisay ayaa waxay gaaraysaa 100 milyan oo pound lacagta Ingiriiska. Waxay u dhigantaa in ka badan 126 milyan oo dollar. Marka waa arrin aad loo hadalhayo. Waxaa marka idinla wadaagayaa sheekadan sida ay micnaha dadkan u tixgelinayaan xayawaanada iyo deegaanka. Maxaa Ingiriiska waxaa ka jira sharci oo lagu ilaalinayo deegaanka iyo xayawaanada mar walba oo wax la dhisayo ama mashruuc la fulinayo dhismo walba oo la samaynayo waxaa shirkadaas wax dhisaysa lagu qasbaa inay tixgeliso ama qorshaheeda ku darsato deegaankaas ay wax ka dhisayso siday maaragtay ku badbaadin lahayd deegaanka xayawaanada ku nool sida maaragtay ay dhismahana loo hirgelin lahaa deegaankii xayawaanada meesha ku noolaayeen inaysan waxba dhib u gaarin waa sharci. Marka waddadan maadaama duurka ay maraysay oo waddada tareenka ah bahashan fiidmeertan ay ku nooshahay weliba waxaa la sheegay inay tahay kuwa maaragtay aadka u dabar go'aya inay yihiin oo ay ku yar yihiin waddankaas marka waxaa lagu qasbanaa in meesheeda maaragtay wax looga dhiso. Laakiin qarashka intaa la eg waxaa lagu bixinayaa waa keliya in bahashan la badbaadiyo. Marka moralka ama cashirka laga baran karo sheekada waxay tahay in muhiimad ay leedahay xayawaanada iyo duurjoogta ama deegaanka noocuu doonaba ha ahaado in la badbaadiyo la ilaaliyo la xaq dhowro dadka ayuuna maaragtay anfacaya. Muhiimadda ma aha keliya in xayawaankaas wax loo faa'iideynayo xayawaanka xitaa faa'iido badan ayuu u keenayaa deegaankaas meeshaas maaragtay uu ku nool yahay. waxaa kaloo laga baran karaa dadkan sida maaragtay Ingiriiska oo kale ama waddamadan horumarayn muhiimadda iyo xoogga ay saarayaan badbaadinta xayawaanka iyo lacagta qarashka intaa la eg ay ku bixinayaan iyo innaga sida ay nafsadda bini'aadanka xataa nolol fududahay oo aan waxba nala ahayn ayaa maaragtay aad iyo cajabisay. waana arrin maaragtay jirto jaraadada waaweyn lagu soo wada qoray sida aad aragtaan waa la hadalhayaa wax badanana laga baran karaa wax badanna waa la iska weydiin karaa. Adiga maxay kula tahay bahashaas waddada tareenka meesha uu maraayo ma la iska tuuri lahaa oo waddadaas lacagtaas 100 milyan ama waxaa lagu qashgareyn lahaa wax kale mise waa lagu qasban yahay in la badbaadiyo. Fikirkaan kasoo dhiibo waxay kula tahay inay la wadaag aad iyo aad u mahadsantihiin.